waa beebigaaga ama beebiyaashaada aabahood kama daba hadlaysid arrimihiisa waa brifat qofna uma sheegaysid inuu biriq yahay cid aa kala sheekaysanaysa walaa waalidka walaa walaalaha ma jiro insidekaaga ha ku ekaato qofka ugu horreeyo ogaaday adiga ha noqdo ama qof uu la kulmo asaga contacti la sameeyey but never ever inaa qof kale uga sheekaysid ha noolaado ha guursado ha shukaansado hadduu raba ha daayo he don't care laakiin adiga ninkaagii horuu ahaay wuu ku furay waa kala tagteen caruuraa u dhasheen afkaaga laba fara saare meeshaa ku aragta waa wanaajine haddaa arag si sharaf la u salaan si sharaf la u ixtiraan hadduu ku soo waco si degan ula hadal wax stress iyo problema ha ku furin because pointigaaga wuxuu ahaa inaa noloshiisa ka baxdid maadaama aadan aqbali karin waa ka baxda soo maaha way aa u faafinay ceebtiisa way aa ula sheergaraynaysaa caasho faarax way aa ula sheergaraynaysaa cabdi faarax way aa ula sheergaraynaysaa dadaa ogeyn sax maaha so adiga maxaa u samaysay I knew inaa i weydiinaysiin su-aashaas laakiin aniga waxaa ula sheergareeyey adigaba waa ogtah aniga weligay lama sheergarayn lahayn qof weligeyna kama hadli lahayn laakiin aniga asaa banaanka geey asaa banaanka inta tagay uu wasmay balaayaan laga sheekeyn ka sheekeeyey adigiyoo ciil qaba ilaahan kugu dhaariyey oo sariirta kusoo ciishooday oo dhibaato kugu soo dhacday oo adigi aad dhibano aheeday hadduu qofkii ku dulmiyo ilaahan kugu dhaariye waa sheegay naftaa leedihiin aan leeyahay adeer aniga kama daba hadli lahayn mana sheegi lahayn weligeen iyo noloshayda maanta ceebta taagan wallaahi uu ka walwalayo uu ka noolaa la'yahay uu habeen banaag baroobeena asaa isku sabab ah aniga waa nii sheega uma samaysni naag ka hadasho gogosheeda iyo nolosheeda barefadka ma ihi waalidka iyo walaalahay iyo saaxiibaday midna kalama hadlo laakiin aniga tayda waxay banaanka ku baxday uguma talagelin mana rabi inaan dib dambe u sameeyo laakiin qofka hadduu i dulmiyo uu gogosheedii ka hadlay uu wasmo uu i wasmin dadka ka sheegay uu i nabay waa ku qasbanaaday walaalayaal inaan sheego runta isugu imaana kaftan aan kasoo tagno markuu qofka asaga nolosha ku soo noqday uu wixii sheegay qasab compulsory igu noqotay inaan sheego laakiin qorshahayga ma ahayn inaan sheego weligeena ma sheegi rabin mana ka daba hadli rabin xataa haddaan wax u dhalay lahayn ma ka daba hadleen weligay ma sheegeen qof xun haddaa ahaa aniga dhakhtar aasa ma dhihi lahayn qof xun haddaa ahaa aniga niidan ka jibin lahaa dhakhtar la kulan ma dhihi lahayn qof dhan aa u jeeda saasay ahayd aniteyda laakiin taa nii sheegayaa waxay tahay qofka haddaa xaaladaas ku aragtid adiga dhib qofka qasab maaha nin walba inuu naagta dhibaatay mogta ani hadda wiilla hore isoo furay ma aragteen wiil iga daba jaqaaqle wiil ilmahayga abood ma aragteen mid iga daba yuusaayo ma aragteen mid i caynaayo xataa milyuun way dabeecad xuntaa mid idhahay ma aragteen maya xataa ma aragteen milyuuna saase hadduu gogosheeda ka sheekeyn laha oo inabi lahaa aniga isxaan uma samayn qofka ma fahamte soo marka adigiyoo jiran oo xaaladda kugu xuntaa haddaa qof dulmisid oo weliba sirtaada og dhibaato waaye ma fahamte ani marka daats waaye akhyaare banaanka u baxday ani marka gabar ahaan adi waxaan ku dhihin lahaa kugu waaninaa haddaysan xaaladda aniga igu dhacda camal kugu dhicin hadday kugu dhacdo xaqaa u leedahay inaa iska celiso waa kuu sheega ilaa hadda hadduu asoo saasa oo biriqa ku dulmiyo weliba dulmiga caadiga dhib ma lahan hadduu sariirtaada iyo gogoshaada iyo barraqdaada ka hadlo naagaha qaar ma aaminaysiin ayadoon la dulmin ee ninka ka sheekeeyaan asee dhaha ninka waxba ma leheen ninka kanuu ahay hadda fiiri hani shira naagtaan ninka ma dulmiyey markii aniga ii sheegaysa fiiri codkeeda fiiri markay aniga idhahaysa milyuunay ninkaygii ima kala kicin markay dhahaysa fiiri ilaaha niigu dhaariye wiilkaas ma dulmiyey tanoo kalea ku jirta naagaha oo ceebeynayso fiiri meel intuu u fariista miyuu caaye fiiri dhegeysta walaalayaal qoftaanoo kalaa ka mida sug wallaahi bilaahi tallaahi aniga am a human being aniga ma ihi amnad animal ma ihi animal ma ihi aniga ana qof bini aadana oo qalbile oo wadna lahaa ahay qof bini aadana oo ilaahay abuurta oo weliba naxariis badana ahay laakiin haddaa igu soo kala qabatid been kuuma sheegaya waa qirsoojinaa soo marka hadduu qofka wax dhibaataa kuu geysan waay u dhibaateyne adiga waay aa u dhibaateyne naftaa leeduu leeyahay qoftaan oo kale fiiri qoftaan dhegeysta
nin qabay oo weliba aan furin ay ka sheekeynay sariirteeda ay ka sheekeynay waa nin oo qabo xilligaas oon weliba furin tanoo kaloo miiran gabdhaha jiro aniga hadda waa lay dulmiyey that's why banaanka u geeyey sheekadan laakiin haddaan lay dulmi lahayn wallaahi nolosheeda iyo ninkayga iyo gurigayga aniga adiga you never know inaa ogaatid walaalna igulamatid saaxiibna igulamatid inaa aniga familigayga arrimahayga aa faragashid ama aa ogaatid secretkayga that's my secret my privatekayga waay soo dhagaysta hadda qoftaan oo kale ninkee abaayo wallaahi ugama sheekeyn soo dhagaysto fiiri qoftaan oo kale ku jirto waa Mrs. Barangi hani shire ya tusaale maxaa dhahay iskaraalaha maxaa waay أنا ما عايز أبايا أمر الله كل يعودك أما دوما ما دمر الله waxaa igu samaysa wax raali ah iisi iskemi ahani maxaa weynay adiga ma qalad ay gashay ogtahay aniga qalad maxaan kaa galay ha ooyin horta ila hadal codkayga haddaad durto aqri aduu ku dhacsin haye ila hadal waaya ooyinta jooji horta ani abaa ninka aniga qabaad ninkaaga uga sheekeysaa ku tiri naagtan waxaase igu tiri ani waxa kaa mudanaya maqaa ninkee meeshaas maxaa ka fahanteen maxay iga sheekaysa oo ninkii aniga aan uga sheekeeyay ay ka wadaa ninka aniga ii qabay aad ninkaaga uga sheekayso ood ku tiri wixii aan kuu sheegaad u sheegtay waxay ii sheegtay maxaa waaye gogasha ninkeeda maxay ugu tiri ninkayga qolka cunugaygan ka jiiftaa biriq waaye malahan hebelo waaye ima kala kici karo waa iska furooyaa waa iska heelooyaa xaaladda sariirta igu xun bararaqay igu tiri laakiin aniga ninkayga uma sheegin mana ihi nacas human being ahayn naagaha sariirta looga keeno secretka inay ninka la wadaagaan familigooda wuxuu dhaha iyo saaxiibadooda wuxuu dhahaba I'm not like those women aniga ma ihi I'm not like those women is aniga I'm a human being and I have a secret so qofka secretkiisa you have to keep wuu kugu aamin inaa ilaalisid waay marka asagaa wuxuu ka dhaadhiciyey asaga mala wuxuuna ka maqla asagan kuu sheegaa daahir calasow yaa xasuusta maalin uu xanaaqsanay uu dhahaye oo gabadhan ishaag maxaa la dhahaayo heblaay xubi iyo oo laga hadlaa oo daahir calasow dhahay hana shiraa cod ka hayaa yaa xasuusto cod ee ninkayga gus male heblow dhahaya aan ka haya yaa xasuusto daahir calasow yaa daawaday ilma adeeryaal maalin uu dhahay ilma adeeryaal yaa daawaday hadduu qof niigu jiro daawada aniga dhah hadduu niigu jirinna waa kaasaa daahir calasow maalin wuxuu yiri hana shiraan cod ka hayaa ee murtimaan leedahay ninka ka hadlaysa inuu eber yahay codka muu daarin laakiin daahir wuxuu carabka ku dhuftay inuu codkaas hayo qofkii daawada walaalayaal wuu niigu jiraa biriq maalintaasuu daahir calasow daawanayay markaa isku dhacnay oon dalaaqadeeda ka qaata muxuu ka dhigay inaa aniga ayada u sheegay inaa asaga u sheegay laakiin aniga uma sheegin I did not never uma sheegin marka ayadii jaa maxay samaysay isku markhaati furtay inay aniga hemlig heedkeeda ii sheegatay hemlig heedkeeda ha ii sheegatee laba lugoolayow biriq la dheelay daahir calasow qolkiisa wuxuu ka maqlo wuxuu iga dhigay inuu aniga aan sheegay si aniga ay micnaha xarash iigu qaado ayadina xaqaa kasoo hadalsiiyey ilaahay baa tunka kusoo dhufta casaa wajallaa rabbiga weynaay baa ayadoo ordayso oynaysa ii keenay markaasay igu calaacashi oysay waa kana codka ee igu tiri wixii aan kuu sheegay oo ninkayga aan kaga sheegay oo aan ku iri ninka waa biriq oo secretka aan kuu sheegaa ninkaaga qasabay igu aheeday inaan aniga isdifaaco oon ka hadla xaqiiqda jirto dadka u sheego inaan dhaho wax maba haysanin aniga I would like inaan sameeyo waxaas inaan sameeyo but you don't have anything qofka inaad dhahdid waa ku qasbantahay wax maba adiga heenine aniga waaba jeclaan lahaa waxaas inaan sameeyo because waa u samaysanahay aniga maxaa lii sameeyey maxaa aniga ahay naaga ahay so maadaama aniga aan naag ahay waxa aad sheegaysa inaan sameeyo waaba u samaysanahaabo nin maxaa u guursaday guri maxaa u yeeshtay waxaa u yeeshtay inaa aniga waxaas adiga aad sheegaysa sameeyo inaa ilmo dhalo inaa guursado inaa raaxaysto ani maxaa kuu guursado inaa ku fiirfiirsado kuuma guursanin inaa aniga adiga kula raaxaysto ku ilmo dhalo haddaan rabin iska baashaalaa kuu guursade
so haddaa adiga marka nolosha been ka sheegto anigana runtaan ka sheegaano haddaa adiga inabtid anigana been kaama sheegaa runtaan ka sheegaa so marka dadka waxaan ka hadlayaa waxay tahay naagaha markii la furo ninkooda wax ka sheego naaga aniga ninaa hore ii qabay wiil kale hore ii qabay ilmo kaleetaan leeyahay horaa u soo guursaday weligee ma aragteen anoo ka hadlaya from till no ma aragteen anoo ka hadlaya no because of that's my secret there are mit hemlighet du vet hemlighet waxa secretka ah oo qofka bini aadanka brefatka asaga kaliya u ah ayaa la dhahaa hemlighet if you know or not okay so nimanka biriqyaashana waa la hadlay other you have to go doctor idibna lahaw if you biriqtaha iswaawaalin runtaa ku sheegaa nimanka biriqa ah iswaalin jinni ha isku ridin gabar ha soo dulmin hana soo caynin because of haddaa soo caysid adigana biriqnimadaada sheegi khasaare yaa qaba adaa qabtid yaabaa ruuxa khasaarad qabadsiyo dhakhtarna aad cunto fiicanna cun bariiskan iyo baastaan isku daldalaysidna iska yaray xeerle kusii saaray neeftuurka hadhow naftaa kaa baxayso one sickna noqonaysa ma fahantay so marka gabarey adigana ninkaaga caawi hadduu biriq noqdo you have to help him ma fahantay so marka caawinaadaa la samey kartaa kaaliska arag